أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قادرا، فلما مدحتك اجتزت السحابا. ومن يغتر بالدنيا فإني لبثت بها فأبليت الثياب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا walaalayaal marka hore waa idin salaamayaa si fiican ima aragtaan, laakiin waxyaabaha Norway aan ku arkay ee aan la yaabay ee aan maqli jiray laakiin hadda aan arkay waxa weeyaan imika waxaynu ka soo baxnay cishihii waa 12 barkii weeyaan habeenimo ama 5 saac iyo bar habeenimo weeyaan. hadda jiifa la isu diyaarinayaa, qorraxdina waa taasoo waad aragtaan. waxa weeyaan dhinacaas ayay ka soo baxday, way iska soo wareegatay, hoostaasay soo martay, iftiinka aad aragtaan ee magaaladii cagaarkii wax walbaba aan nalba loo baahnayn. haddana waxa weeyaan in yar bay soconaysaa, meeshii dhowr saac kadib waxa weeye 3 4 5 saac kadib halkaasay ka soo baxaysaa. haddana waa waxyaabaha runtii aan sida aadka ah ula yaabay. 3 saac kadib ayaa la leeyahay, 3 saac kadib ayay soo baxaysaa. waa 12 iyo barkii weeyaan. labada iyo barkana waxaa la tukanayaa salaada subax. weliba intan way waqtiga wuu ka sii yaraanayaa oo hadhow waxaa laga yaabaa saacad 2 saac inay u dhaxayso cishaha iyo subaxa. yani waa waxyaabaha waa min aayaatihi weeyaan, waa aayaadka ilaahay, calaamadaha weynada ilaahay lagu garto. marka imika waa maalin runtii waxaan idinkugu soo gudbinayo waxa weeyaan dad baa laga yaabaa sideedoo kale reer baadiyaal inay iska yihiin oo ay Yurub ugu horeyso oo aanay waxaan aqoonin baa laga yaabaa. marka waa kaan idinka ballan qaaday inaad faa'iideysataan oo wixii hadday la yaab leh ee aan la yaabo inaan idin soo gudbiyo. marka waa waxyaabahan la yaabay weeyaan. waa iska maalin way un sii cadaanaysaa, habeen mugdi ah maba jiraba meelahan. waxaaba dhinaca waqooyi, weliba haddii la aado dhinaca waqooyi waxa weeyaan qorraxdii waa halkaa ayay taagan tahay, maba ka dhacdaba. 6 bilood way iska wareeganaysaa qorraxda, 6 biloodna waa iska mugdi. marka ilaahay waqtiga haynoo barakeeyo, ilaahay waqtiga haynoo barakeeyo. waxyaabahan runtii sida aadka ugu wareeray ilaahay waxaan ka baryayaa dadka muslimiinta ah meel walbo ay joogaan, dhul waqtigiisu qiyaasan ayaynu ku noolaan jirnay. dhul 12 saacna maalin ah, 12 saacna habeen ah ayaanu ku nooleen. dhul aan maaragtay qabow badan lahayn, kuleel badan lahayn, cimiladiisu dhaxdhaxaad tahay ayaynu ku nooleen. dhul lisku wada jecel yahay ayaynu ku nooleen. dhul waxaynu ku nooleen hooyo iyo aabbo, awoowe iyo ayeeyo, abooto iyo abkow, ilmihii wixii oo dhan ay ku wada nool yihiin. waxaan ku nooleen dhul ul iyo diirkeed aynu nahay. waxaynu ku nooleen dhul aynu ku asturnayn. waxaynu ku nooleen dhul aynu isku jeclayn ayaynu ku nooleen. ilaahay dhulkeennii haynoo nabdeeyo, ilaahay dhulkeennii haynoo nabdeeyo, berisamaadkeena ha ku soo celiyo. inta ka soo tagtay ee meelahan ku rafaadsanna ilaahay ha u gargaaro. dhalinyaro, hooyooyin, aabbo, waalidiintaay ilaahay ha idin gargaaro. sharta iyo fitanta Allah idinka reebo, awlaadiina Allah idin soo celiyo. idinkii awlaadiinaba ilaahay ha idin xifdiyo. jannatul firdaws rasuulka maciisa ayaa inoo ballan ah aan ilaahay ka baryayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.